guddiga tacliinta sare ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo muddooyinkii u dambeeyay ku jiray olole ay ku qaadeen kollejyada iyo jaamacadaha kala duwan ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ka howlgala kuwaasi oo la hubinayo aqoonta iyo manhajyada kala duwan ay bixiyaan iyo heerka ay taagan yihiin waxaana kormeer ka mid ah kormeeradaasi oo hogaaminayo Commissioner Yuusuf Maxamed Cabdi horena waxa wasiirka hore wasaaradda horumarinta maaliyadda waxa Commissioner Yuusuf Maxamed Cabdi uu ka warbixiyay kormeerada kala duwan ee guddigu waqtigan uu ku howlan yahay ummad waxa si togan oo dhaqso ah lagu bedeli karaa laguna horumarin karaa waxbarasho tayo leh oo wanaagsan oo dadka oo dhami gaar ahaan dhalintu ka qayb gali karaan oo ay heli karaan in badan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxbarashadu iyo aqoontu inay tahay waxyaabaha qura ee wadanka wax laga qaban karo ayaa tiraabtiisa iyo hadalhayntiisa ahayd madaxweynuhuna kolba hay'adaha dawladda ee qaranka ee kala duwan ayuu aragtidiisa iyo fikirkiisa soo dhaxmariyaa maadaama dib u habeyn lagu sameeyay qaab dhismeedkii komishanka tacliinta sare waxa laga marmaan noqotay in olole maadaama sanadkii dhamaad isna aynu ku jirno in ololaha aan ku qaadno kulliyadaha wadanka ka jira iyo jaamacadaha wadanka ka jira si aynu ogaano kulliyadaha iyo jaamacadaha wanaagsan ay tahay inay halka horumarka ka sii wadaan kuwa gaabis ku jiro ama ay wax ka dhiman yihiin oo iyagana loo tilmaamo loona sheego waxa ka dhiman kuwa aadka u liita iyagana tallaabadii ku habooneyd laga qaado waxaan doonaynaa marka arintani ay dhamaato iyo dabagalkan iyo hubintan iyo qiimeyntani waxba ka soo bixi doona waxa kamid ah Ilaahay naftiinoo daayo inaynu soo saarno manhaj midaysan oo dhammaan maadooyinka kala duwan ee wadanka laga qaato haday tahay kulliyadaha iyo jaamacadaha wadanka ka jira waxay haydoon in la eego bal hada documentation ka ay leeyihiin iyo resource ka ay haystaan imika waqtigan assessment kana lagu sameeyay waxaan aragnay in quality ga la eegayo tayada ardayda soo baxay jaamacadu ay soo saarayso value intee leeg ay dalka qiimo intee leeg bay u leedahay qofka hal la fahansiiyo dalkiisa wixii resource ah inuu aqoonteedii marka uu barto isagu innovation u sameyn karo wax soo saar u sameyn karo research innovation waa qaybtan imika lagu daray aad iyo aad kaan u mahad noqono qolada commissionka aad baan ugu faraxsanahay in arrimahaas oo kale iyo assessment-ka noocaas nagu sameeyaan runtiina waanu jecelnahay wixii annaguna dadaalkayaga waxaanu kordhin karno sideeda ayaan u kordhinaynaa in labada qof ee muwaadinka